dhalinyarada lagu dhagan yahay qowdhan iyo xiradid bal Soomaaliyeed dhalinyaradan daawada anigu yaab baan arkay bal muuqaalkan soo dhawaada halkan waxa ku sugan fanaaniintii dhalinyarada ahayd reer Hargeysa caawa bulshada reer Hargeysa guud ahaan bulshada reer Soomaaliland bal waxa uu sheegaysaan nala wadaaga saaxiibayaal waayahay bal horta intaan inoo sheegin anigu waxaan garan waayay war afar in oo Hargeysa ka soo heesay oo meel loo taas qaaday ummadii Ilaahay Soomaalida maanta waxa madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh ma la dhihi karaa siyaasiyiinta Soomaaliyeed inamada yaryar Hargeysa ka soo heesay ayaa xataa waxa la sheegay in baarlamaanka Soomaaliya lagu falanqeeyay heesti meel aan lagu falanqeyn dhagay faray horta ka dhacday markaan uu tayada ka hadlo waxaad moodaa in xogaa yar oo midmadow in heesta ku jiraan heestan dan iska marqaansan oo waxa weeye baa sameeyay ee Hargeysa iska fadhiya waa marqaankii tusayba meel kasta Soomaalidu ka heesta anu mid kale waan garan waayay war waxa Hargeysa ka dhaca shimbir haday waxa weeye loo ka jabto ilaa baarlamaanka Soomaaliya lagu falanqeynaya sidee shimbirtu u jabtay miyay duuleysay mise way socotay talow maye markaas ay islahayd waxa weeye duulo magaalada qabo isbuuc baa la hadalhaynaya haddii habari waxa weeye iska gabagaba ahi oo xiirani Hargeysa waliba degani ay Facebook-eeda wax ku qorto golaha sanadka ee waxa weeye Soomaaliya ayaa falanqeynaya anoo shirkada waa fahmi ilaa hadda cid iga dhaadhicisana horta waa la yahay war waxaan markii Hargeysa ka dhacaan ama waxa weeye qof ka hadlo ama arrin wuxuu Hargeysa ka dhacaan waxaan adduunka la qaylinayo horta waan garan lahay waa waree ka kacay meediyaha wariya Instagram ila Twitter ila hadii Ilaahay ku idmahayo hooha Telegram soo ma jiro horta waxa waan maqlaaway Telegram YouTube sheeg marfisha sheeg meel kasta qiimaheena ee waxa weeyaan 20ka malaamir boodhar malaynaya ummadii Ilaahay qaqbay kaga siiyay abal biyan cab ilaaha baan ku dhaxtay sidana simahay bismillah marka nimayahow waxaan la hadlayaa dadkan waxa weeyaan Hargeysa u dhataagaya miyaa la hadla ma mid wax qoray ma mid baa live ku jira ma mid baa halkan Hargeysa ummadii Ilaahay Hargeysa maxaa ka dhacay Soomaaliland maxaa ka jira halkan yaa maray sidan yaa yiri Hargeysa ma soo soo eegaya wallahi waa Soomaali meel ay joogtaba Hargeysa yaa tagay yaa maagay qof habar kasto inay caan noqoto rabtaana ama qof ma aflagaadeen hadda imka reer Soomaaliland way baxeen halka waxa weeyaan ay marayaan hadii habaris qaawiso iyagoon saa loo eegay sababta wax kala maaha waa waxaan hadii la soo la yar wado mashriq iyo maghrib meediyuhuba waxaan sababta meediyaha Soomaalidu wallahi Hargeysa loo sameeyay qof kasto raba inuu caan noqdo haafka hore uu aflagaadii Soomaaliland aan kana waxba xogaa markuu caan noqdo oo waxa weeye dadku yar bartaan ayaa hadaba Hargeysa ama heesba u soo qaadi ama soo amaani wixii horna uga qatoor laakiin horta dad badan la cafin maayo dad badan oo ogahay iga walla inaan la cafin waayo de afisku xad buu leeyahay samood qofka hadduu talaato sida de waxa weeyaan kan iyo kii qasqaska labadii afka waxa weeye wax isugu goray sidii gabdhaha horta labadaas way ku daayeen waa kuwa aragtaan afka wax isugu gelinaya dhaqankaana Soomaalidu ma laha jiilkan dambana horta dhaqanka barina dhaqan fiican maaha waayo de baribay iyagoo meelaha maraya xafladii iyo adduun isku jooga yey afka wax isugu geldo adduunka horta waxan maxaa ahay ilaa koona sameeyay anu mid kale wax la yaabanahay labadan dadka waxa weeyaan role model waxa weeyaan ka dhigtay ee ku dayda ee hadii Ilaahay ku idmaayo de qasqas marsada dumarka shaah lacaba waxa weeyaan meelaha xintaba iska warwareega dadka reer Soomaaliland
نو حليه ورئيس سومالان وقب باتين والله قب دشي باتين سما والله deegaan kan Soomaaliland in Muuse Biixi Cabdi Xildid la dhahdo madaxweyne ka inta uu joogana ama ha dhooqaysto ama wuxuu doona ha sameeyo adeer anagu waxaan isku hayno waa siyaasad laakiin qabiil iyo reer hebel iyo anaga reer hebel iyo yaano kaas ma jiraan way sanahayn dee falanqeeya oo habar darrad kuftay oo la sheegay dee taana falanqeeya shinni wata hadduu yimaado wala la falanqeynaya marka reer falanqoy de khayr baan idin rajeynaya anigu waagii beriyo koonfur waxbaa ka dhaca puntland taan duriskana waxbaa ka dhaca waa tala jiifto barxadda anagu hadalkan ma maqashay dagaal baa ka socday waxa weeyaan dee ciidamada meesha marayay mid baa ka dhex lahaa barxaddaan jiif cid falanqaysay cid soo hadal qaaday ma jirto reer Somaliland warka idin soo qaadaba inuu caan noqdo rabaayo la wadoodo dadkan horta idinku ka dhaca caanimo ma rabtaa maanta Somaliland soo hadal qaad wax Somaliland waxa weeyaan ka dhacay falanqee dhalinyarada youtuberada ee wax falanqeysana nin walba way u taalaa waxa weeyaan waxa uu yiri meel bay u yaalaan tan waa idin salaamaya telefoon bay dhacay khayr bay idin rajeynaya